intaana marka gudagelinin mawduuca guud waxaan rabaa shay aan rabo inaan madaxiina ku qaadaan idiin sheego hadhowt waa la daalay iyo waa la kala baxsaa lihi doonaa mugta waana mawduuc annaga meesha ugu muhiimsan kaasoo ah atashjiic ama taxfiis waa isku macna labadooda oo waa ingiriis lagu dhaho encouragement dhiirigelin waxaa la dhiirigelinta waxaa u baahan cid kastaa leh qof kastaaloo shacabka ka mid a madaxda ka mid a madaxweynaha wasiirka labada xaaska xajida xaaskaas qaba ee carruurta guriga kuu joogta ardada haddii madaxweynaha shacabku ammaanaan oo dhahaan maasha una duceeyaan wuu sii bararayaa wasiirada haddii reer wasaare madaxweyne ammaan dhahaan wasiir baa shaqays waa ka soo baxay way ugu faanaa khatar baa tihiin dowladda dadka kala wadaan wasiirada way ka darayaan shaqaalaha iyo xafiiska ka shaqeeya haddii ninka meesha maamul u dhaho midoo baale adinkaa hawsha kala wadaan la'aantiin bacdalla waxma kala socdeen meesha wuxuu imaanaya kala burays حاجة دي حاجة أما نطلع هذا ما شاء الله إلهي أخبرك كي أضاف هو نولنا بعض الله أنت أصلا هو سيب الريع مركب حاجة وحافظة يمادو هذا حاجة ده أمانه تعرض كل هاي سوها بيسي سقولوا هذا جسي سعنطوا كرز بري لما لا بيسا أنا محنا وصي مركب معلومة دانا أرضا أرضي كستالي موهبة ديسا وعو كفي عيني وحي إلهي السيء عط كيسا حتى أضو صميم مركب أركض بص ألف واحد في عمل هو عملت waxa aad noogu badan amarkeena hay samee saanada qofku bini aadamka ay laba shay ku shaqeeya oo dhiirigelisa waxa loo yaqaano inuu duu wax sameeyo fiican lagu ammaano ha hadduu qalad caaqad looga digo laakiin midda riixaysa waxay tahay in wixii wanaagii uu leeyahay ammaan uu ku helo laakiin haddii mar kastaale oo shaqo fiican qabato aan lagu ammaanin ha lagu siinin laakiin markaa qalad yar gasho cirka laga soo dhaco si birqdi hada meesha balaa ka dhacday ardada aan hayna marka waxay dhiirigelin u samaynaya maskaxda u furaya wanaagga siinaya ina macallinku maalin wax ku ammaano hal eray yar aad tira wax la ilaahay kitaab lagu furo subxaanahu wa tacaala adiga sheekh waa ku fiican tahay codka waa macaan yahay adiga macallin baa ku fiican tahay adiga imaam baa ku fiican tahay adiga ina macallin noqdo mid wax ku ammaan haa waxyaalaha ay adadu ay jecel yihiin weydii maxaa jira doctor sheekhaan oo qartaa ma sha Allah adna inaan noqdo rabaa injineer sheekhaan noqdo doontaa insha Allah taala adna maxaa jecesha anuu noqdo rabaa diyaar la kuran yahay waxa uu sheegan doonaa waxa uu maskaxda ku hayo sheekh ugu dar iyo quraanka iyo wanaag lagu gaaro anu quraan ma sheegna wax lagu gaaray marka ujeedada waxa leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa muallimul awwal saxaabadii say u jeclaayeen way ogtihiin mid kastaale saxaabada in sheegi doona mid walba wuxuu ku ammaanay haddii ala kuuraya muhiim uu leeyahay waana la wadaagaa laakiin wuxuu ku yidhi adaa khatar u ah mubaalaqa حديث صحيحين في جامع الصغير الشيخ الباني رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم أرفع أمتي بأمتي أبو بكر ومضى يقولون حديث بدل مضى له شو أبو بكر هي ما قدرت كل حاول حديث بدنايا لكن أسوي حديث بدنيا وأشدهم في دين عمر دين تعالى وقعد رجع دي على كورين هاي دين تعالى واحد كحنا غيسوس استاجي وعض عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابة عدن دين تعالى واحد بريشري لكن أسوي حال السي ما في وقار سمع ولا سي أمانة وأصدقهم حيان عثمان وأقولهم الشيخ بن حشوت بدل وعثمان بن عفان رضي الله عنه صحابة كلهم حشو جرين وحنا نتك سينا السي نمدوش خيال عنه وحي أمان وأغضاهم علي علي بقى وقعد يسمى لي لا بيقول لك لو كما هيو علي بقى وقعد يسمى كل قضاء بقى هاي لكن نم الموهبة لسي وأفرضهم زيد بن ثابت حاجة حلقة وفي عمل وخلاص دخلها زيد رضي الله عنه أصلا كل حلقة وهي غير ما نقول لكن نم الموهبة دي أول هذا ما راح لقى صاري سو وعرف دي على كورين هاي ولا يقولها ولا وسي ضرب هذا هو المعلم marka macallin noqonaysa waa inaad leedahay dee ala kuran yahay calaamaad aad dadka ku kala saari karto ku dhiirigelin karto kitaaba ku jeclaysiin karto kor ugu soo qaadi karto haye waa aqroon hubay waxaa dhihi waxa ugu akhris badan ubay ibn kacb saxaabada kullu quraab ay ahayd badankood laakiin waxaa la yidhi ubay ibn kacb ugu akhris fiican ugu akhriyo quraanka kitaabka ugu akhris badan haye
وأعلمهم بالحلال والحرام حلال شيء حرام ده وقوم قالوا في الصيام كله يقال حاجة حرام معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ وحلو أماني حلال شيء حرام يقول يقانو هي ألا وإن لكل أمة أمين أمينا النبي صلى الله عليه وسلم أمد كاستاله من آمنوا أو سرت لو قصدوا أو وحبا لغا بقين دباتة لغا بيلادا وأمين هذه الأمة أمتنا ما يعلموا شيء أبو عبيد بن الجراح أبو عبيد رضي الله عنه كل أمينين بأهي لكن بل فيري ما مد كاستاله وحكو أمان لكن ما أنتم إن قصوا هرتو أنا حبار يدقع يقيل يحنق يدعو ما في عنه وأنا ما خلينا هاي waxaan ardadan ku dhiirigeli karno kitaabaan ku jeclaysiin karno darasada kale uga duwan tahay waana meesha la isku dhaafay soo maxay dhahan la keentay orodna maaha waddamadan horumarka sheegto oo iskuuladooda iyo dad daryeela waad yaabaysaa say arda u kala saarayaan oo layman maantona istikro loo ordaya wax yar sameeyaba istikar baa lagu dhijinaya ugu qoran yahay ammaan khaas asagoo iska leeyahay layn gaara firistaan bay leeyahay ardada khatar tahay oo mid kasta u higsan doono halkaas inuu gaaro kii qalad yar galaa dhibaato ka dhacdo dil iyo qiraan midna ma jirto waxaa laga yaabaa hadday loo baahdo inuu tala iyo loo jeedshay qaladka u gala qalad u nahay in xafiiska la geeyo maamulu ma garaaci doonaa maya tala siiyo soo ammaano yidhahdo marda hau laaban waxaan mustaqbalkaa baabi'inaysa iskuulka lagaa cayrin karaa hadhowti waxaad noqon qof wax baranin maanta meel fiican baa joogtaa waxaa laga dan weyn baa lagaa leeyahay dan weyn xoolaya wala haddaba waa inaan marka kulligood gaar waafaqaa dhahaa adiga danba waxaa lagaa rajaynaya wax weyn adiga sheekh noqon doonta badan adiga dan baa lagaa leeyahay aabihi hooyan waxay kaa meel sare kaa filayaan ana sidoo kaleeto arda badan adoo kaleeto noocaas waa la yaqaanaa ardada khatarta noqotay noqdaa sheekh دكتور معلم marka haddaan inaan maskaxda ka hadinin ee u la ordayno ma shaqayn doonto والله shaqayn doonto والله